asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa dhambaalkeenii 16aad ee dhambaaladeenna naftaaduna xaq leh. dhambaalkan waxaynu bixinay dhammaystir. rasuulku calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim wuxuu inoo sheegay dadka mu'miniinta ahi markay jannada galaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu soo dirayo malagaasoo ku odhanaya yaa ahlaljanna, dadkii jannadan ilaahay siiyey ee geliyayow, ilaahay ma idiin oofiyey wuxuu idiin ballanqaaday. markaasay hareerahooda eegayaan oy arkayaan nicamka iyo barakaadka iyo quruxda iyo midhaha iyo allahuma salli calaa sayidina muxamed anhaarta iyo webiyada hoos ordaya iyo aswaajtoodan daahirkaaya la siiyey. yacni nicamka jannada dhex yaallo oo dhan bay saa u eegayaanoo ay arkayaan. markaasay odhanayaan nacam, haa, ilaahay waa noo oofiyey wuxuu noo ballanqaaday. markaasuu ku celinayaa malagu, ilaahay ma idiin oofiyey wuxuu idiin ballanqaaday. markaasay hareerahooda eegayaan, markaasay odhanayaan haa, ilaahay waa noo oofiyey wuxuu noo ballanqaaday subxaanahu watacaala. markaasuu ku celinayaa, ilaahay ma idiin oofiyey wuxuu idiin ballanqaaday ballanqaadkiisii. markaasay odhanayaan haa, ilaahay waa noo oofiyey. markaasuu odhanayaa hal shay baa idiin hadhay. markaasay odhanayaan maxaa noo hadhay? miyaanu ilaahay naar naga badbaadin? miyaanu ilaahay wejiyadayda caddaynin subxaanahu watacaala? miyaanu ilaahay jannadana soo gelinin? miyaanu ilaahay nicamkan oo dhan noo dhammaystirin? markaasaa malagu wuxuu akhriyayaa liladiina axsanu lxusna wa ziyaada. markaasaa la faydayaa xijaabkii ama wixii kala dhexeeyey addoomahan iyo ilaaha abuurtay subxaanahu watacaala. markaasay ilaahay waxay u arkayaan wejigiisay dheehanayaan subxaanahu watacaala. wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira. lama siinin buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wassalaam wax ka wanaagsan oo ka qurux badan oo ka dhammaystiran aragtidaa ay rabbigooda arkeen subxaana watacaala. allahu akbar. ma filan karayno, ma maskaxdeennu ma soo qaban karayso, mal awaalkeennu ma keeni karayo, nafsadeennu ma sawiran karayso inaynu indhaheenna ka qaadno rabbigiina abuuray inaga dhigay dadkanaynu nahay, ee muslimiinta inaga dhigay, ee addoomahan inaga dhigay, ee abuurkan sidan u eeg inaga dhigay, ee hebel iyo heblaha inaga dhigay, ee adduunyadan ina keenay, uurkii hooyadeena inagu abuuray, ee inagu ilaaliyey, ee inaga soo saaray, ee ina arsaaqay, ee ina qurxiyey, ee ina ilaaliyey, ee ina xafiday, ee ina hadeeyey, ee ina baray, ee ina koriyey, ee ina xanaaneeyey, intan ina soo leekisiiyey, intuu ina wanaajiyey adduunyadan. waxa weeyaan wanaaggiisii uu inagu hayey iyo siduu inoo dhaqay ee inoo haqabtiray, marka dambana janno inagu abaalmariyey subxaanahu watacaala. ilaahay kuwuu inagu abaalmariya haynaga dhige in wejigiisa aragno. wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira. fi lqur'aani alkariim liladiina axsanu alxusna wa ziyaada. alxusna fuqahadu waxay ku tafsiirtaa inay jannada tahay. wa ziyaadadan iyo dhammaystirkan iyo biiristan waxaa loo biirinayaa ee la siinayaana waa annadar ilaa wajhihi alkariim. waa wejiga ilaahay in la arko. ilaahay kuwii wejigiisa arka ha inaga yeelo camal wanaagsan oo ina gaadhsiiya heerka aynu ilaahay wejigiisa ku arkayno. camalkeenu inama gaadhsiinayo inahay fadligiisa iyo galladiisa inagu daboolo, inagu naxariisto, oo inagu ciseeyo, inagu sharfo, inagu weyneeyo, ina karaameeyo, heerkaa ina gaadhsiiyo. ilaahay kuwii mutaha inaga yeelo. fa ducada dhambaalkeena waxa weyaan allaahumma urzuqna alxusna wa ziyaada. alxusna wa ziyaada. ilaah waxaadna siisaa janno iyo inaan wejigaaga aragno. ayay labada kelmadood ka dhigan yihiin, alxusna wa ziyaada. salaam.